السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب ونكسن أخيارتكو حرن شانلك عمرك يوتيوب وأولادكي عمر الدرس وين الله. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ميلور باجوبتان dadkii shalay ciiday iyo dadkii maanta ciiday kulli waxay idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Akhyaartu waa sida hore idinkuugu sheegnay misna sida hore idinku aanu ogeedeen waxaan mar walba aan jecelnahay inaan idin keenno barnaamijyo idin xiiso geliyo idin farxad geliyo hadduu yahay maxaa la dhahaa qosol haday tahay sheeko iyo waxyaabo kale oo tiro badan insha Allah aan rajaynin hadduu Ilaahay culayska naga dejiyo xiraadahan jira hadduu Ilaahay naga qaado waxaan jecelnahay barnaamij aad u xiiso badan inaan idin soo gudbino insha Allah taasna hamigeena iyo farxadeena waa Ilaahay idinkiisa idinkan waxaa Ilaahay nagu barisaan inuu Ilaahay culayska Ilaahay naga qaado oo Ilaahay culayska noo fududeeyo إن شاء الله عاو موضوعا كحل دون وحو ياهي هدو إلهي كران النقضو عفنتا هدو ولالكا إيفان خلط كاقلي أما هدو ولاشاد أي خلط كاقشي هاد إيجار ولالكا هدو خلط كاقلي وحبا عليسا وسارن ولاشاد هدي خلط كاقشي وحبا عليسا وسارن عاو إن شاء الله موضوعا كحل دون وعفي ولالكا أما ولاشاد حقيقة تاني هرطو وحانا أنا قدد مسلمين وحانا الله دد كهايستو دين تفرقان waxaan nahay jiilka ugu dambeeyo oo dunida lagu abuuro sababtoo ah dad horay dad badan naga soo horeeyay adduunkan diinta furqaanna diinka dambeeysa ma jirto waa diinta ugu dambeeyso oo hadda adduunka laastika ah waa diinta furqaan diin dambe oo gadaasheeda soo baxaysa ma jirto hadduu Ilaahay karaan noqdo nabi dambe oo gadaasheeda soo baxayn insha Allah ma jirto marka walaalahayga gabar iyo wiil isku jiro waxaan idin leeyahay ciid mubaarak marka hore hamiga jiro horta wuxuu yahay inaad mar walbaba walaalkaaga hadduu khaladkaa galo ama walaashaada haddii khaladkaa gasho waxaa muhiim ah inaadan marnaba culays u qaadin sababtoo ah waxaad ogaataa maanta markuu qofka walaalkaaga khaladkaa galo ogow inuu bini aadan yahay oona shaydaan ku xiriiro birina uu ka soo noqon karo khaladka uu galay laakiinse haddaad u qaado khaladka uu galay aad dhahdo macnaha soo khalad iga galmasee khalad iga gashay waxaa aad mid loogu fiican yahay waa had iyo jeer walaalkaaga wiilka oo ama walaashaada gabadha ahay haddii khalad uu ka dhaco aad ogaado inuu khalad ka gashay qofka walaalkaaga ah marnaba ha isku maleynin inaad saxan tahay xasuusno mar walba inaad khalad sameysay aadna khaldan tahay sababtoo ah khaladka haddaad gasho waxaa mar walba qurux badan qaabkaad qofka walaalkaaga ku qancin lahayd laakiin haddaa khaladka ka dhigato inaad ku saxan tahay mase qof macnaha mar walba diyaar u ah inuu khaladka asiga galo oo ku qanco kulli aad baa loogu fiican yahay waxaan dhihi lahaa khaladkaad gasho waxaad kullaba jibaartaa waa inaad cafiso walaalkayga iyo adigana khaladka walaasheeda oo adiga khaladka lagaa galayna waxaa mar walba muhiim ah hadduu qofka walaalkaaga khaladkaa gala ha ahaato gabar ama ha ahaato wiil waxaa mar walba muhiim u ah inaad xagga Ilaahay u cafiso sababtoo ah haddaa maanta Ilaahay u cafiso adigana biri khaladkaa gasho Ilaahay unbaa ku cafinayo sababtoo waad ogtahay anaga adoomo Ilaahana maana khalad naga dhicin malahan aan Ilaahay uga fiin aan Ilaahay waxyaabo raali keen aan sameeyeen ma jirto haddana ayadoo saas tahay Ilaahay markaan u noqono adoonkiisa wuxuu raali kaga yahay markuu ka soo cafis dalbado inuu cafiskiisa u fuliyo haddaba anagu adoomo Ilaahayna oo mar walba khalad naga galo qofka walaalkeena ama walaasheena markii khalad naga gasho seebaan ku cafi waynay awoodeena ma ahan inaan ka sii xanaaqno sababtoo ah waxay tahay khaladka markuu walaalkaaga ama walaashaada ka gasho qaabkaad mar walba ku xalin lahayd ama qaabkaad ma aragtaad ugu dhaadhacsiin lahayd qofka walaalkaaga nafsadaada inuu khalad bab ka galin laakiin hadda mar walba nafsadaada ku jirto cuqudad ama macnaha maxalla cuqudad nafs wax loo yaqaano adigana waxaad noqonaysaa mid waligiisa ma artaan problem iyo mashaakil ka bixin sababtoo ah waxa keenaa waxay tahay qalbigaad ka jiran tahay haddaad qalbiga ka jiran tahay waligaa meel ma gaaraysid Ilaahayna raalika ma noqona waa Ilaahay adoonkiisa midkaan naxariisana ma jeclo haddii mar walba aad naxariisato adiga Ilaah baa ku naxariisanayo Ilaahayna anaga na abuurtay oo koonkan nagu abuurtay oo wax walba noogu deeqay haddii tahay maxaa la dhahaa nolol haddii tahay hawo haddii tahay biyo tahay wax walba adduunkan korkiisa saar Ilaahay raali oo nagu noqday oo mar walba wuxuu jecel adduunkiisa inuu Ilaahay ku qanciyo haddaba adigoo adoon Ilaahay maxaad u diiday inaad walaalkaaga ma arag khalad oo ka gala aad u cafinaynin haddaba aad baad ugu khaldan tahay walaasheeda walaalkayga qofka walaalkaaga markuu ka khaldan yahay waxaad qaadataa inaad ka khaldan tahay markuu ka khaldan yahay inuu ka khaldan yahay laakiin aadan dib u raacin khaladka uu ka galay sababtoo ah marka khaladka ka gasho walaalkaaga ama walaashaada khalad ka gasho ogow inaad nafsadaada khalad gashay
sida ugu dhaqsiyaha badanna ku celi inaad khalad gashay aadna ka raaligeliso walaalkaaga sababtoo haddaad walaalkaaga khalad ka gasho waxaa muhiim ah khaladka qaabkaad u xalin lahaydna mar walba ku dadaasho walaalkaagana hadduu markaas khaladki kaaga soo noqdo adigana ha ku adkeenin oo ha dhihin see khalad ku gashay waxaad laga rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad raaligelin ku samayso oo raaligelinta lagu keena aad ku qaadato sababtoo ilaahay raaliyo nagu yahay anagoo wax walba sameynay adduunkan aad arkaysa maanta waxaan ka dhicayna ma jiro haddana iyadoo saas tahay ayuu ilaahay mar walba wixii aan sameyno wuxuu naga sii sugaa waxay tahay inaan soo noqonayno sababtoo labadeena garab waxaa saaran qiib iyo catiib marka waxa waa ayagaana dambigeen iyo khaladkeen iyo saxdeena qoro haddaba adiga haddii lagu qoro midda khaladka aad gasho waqtixaarka lagu qoro oo haddana xag ilaahay lagu gudbiyo midda saxda gasho waqtixaarka lagu qoro waxaa ilaahay lagu gudbiyo adiga maxaa ku anfacaya haddii jeer waad ogtahay khaladkaaga iyo saxdaada inay badan tahay khaladkaaga marka khalad markaad gasho ogow inaad addoon tahay khaldantay waxaan lagu dibiraa inaad saxdo ama wanaag samayso sababtoo markaad wanaag samayso waxaad ogaanaysaa wuxuu maanta aad geysatay markaad khalad gasho waxaad ogaanaysaa khaladka aad gashay ilaahayna haddaad khaladkii aad gashay kasoo noqoto ilaahay raaliyo kaaga yahay walaalkaagii khaladka gashan haddaa ka raaligelisoon ilaahay raaliyo kaaga yahay qofkii raaligelinta loo keena hadduu qaatan ilaahay raaliyo kaaga yahay sababtoo ilaahay asigina abuurtay xataa markaa aniga xumaan aan u geysano mase wax oo diinta islaamka aan waajibka ahayn aan sameyno ilaahay waqti oo na siiya markii raqiib catiib ay qoran lahayn wuxuu leeyahay bal u keen adduunkii waxaa laga yaaba inuu soo noqdo hamiga wuxuu leeyahay inaad soo noqoto ilaahay adigu ku abuurtay waxba aadan ahayn adoo wax lagaa sameeyay mas wax laga aadan aqoon u lahayn ay haddana kalsooni iyo rajo lagaa sii qabaa ma aragtay inaad dib u soo noqon doonto ilaahayna raali uu kaaga yahay haddaba adiga walaasheeda ama walaalkeeda markuu qof walaalkaa qalad kaa galo seebaad uga adkeen kartaa seebaad leedahay macnaha aniga qofkaas salaan nagama dhexayso aniga iyo qofkaas maxaa lahaa gaali muslim aan kala nahay ama aniga qofkaas ma aragtay laba isoo dhawaa karta mani haddaba aadaad ugu khaldan tahay sababtoo ah khaladkaad lagaa galay haddii lagu khiro khaladkii lagaa soo raaligeli waxaa macquul ah ama waxa kugu wanaagsan inaad khaladkaa lagaa soo galay anaad ka raali noqoto haddaba xaqiiqda jirtaa waxay tahay soomaalida badigeena haddaan nahay dad soomaaliyeed waxaa naqaana horta calool ku qaad wax la dhaho aadaan loogu fiican yahay waxaana mar walba muhiim ah maaragtay inaan qaladkii qof walaal ama walaal naga gabar ama wiil naga gala inaan soo noqon anaga waxaa soomaali haddaan nahay dad waxaa nahay maaragtay siba markii macnaha wax lagu galo inuu xataa aargudsado jecel mar walbana waa laga fiican yahay inaad sheyga lagu geystay inaad mar walba aargudashadiisa ama ma aragtay qaabka lagaa sameeya inaad ku dadaasho mar walba waxaa macquul ama muhiim ah markii xumaan lagu geysto qaabkaad macnaha iskaga tirtir leed xumaantaas oo xumaanta bedelkeeda wanaag lagu samaysan laheyd walaalkaaga adoo filayn inuu khalad kaa galay waxaa la rabaa inaad wanaag ugu badasho walaashaada ayadoo filayn inay khalad kaa gashay waxaa la rabaa inaad wanaag ugu badasho ilaahayna wanaag buu kugu bedelayaa maalintaad moor adiga xumaan aad geysato waa moor aad xumaantaada badsato moor aad wanaag geysato waa moor oo wanaagaaga sii bato ilaahayna raali kaaga noqon hadduu wanaagaaga bato walaalayaal mar walba waxaa idin leeyahay isku naxariista ilaahay soo noogu naxariisto sababtoo ilaahay addoommadiisa aad u jecel yahay alxamdulilah maanta waad ujeediin adduunka wax cudurka ka jiro waa cudurka adduunka dhan maanta saameeyey haddana saasay tahay ilaahay qofka maanta guriga uu kasoo kicin oo qofkii markaas ilaahay sababtiis kaga dhiga maahane boqolaal oo ku dhacay wayna kasoo kacay boqolaalna uu ku dhacay oo ku dhinteen marka ilaahay wuuna jecel yahay ilaahay maanta wuxuu awoodaa adduunkan aad arkaysa inuu nagu gediyo ilaahay awooddeeda uu leeyahay ilaahay maanta awooddeeda wuxuu leeyahay inta saa u taagannahay adduunka in hal mar zak nolosii ilaahay awood uu leeyahay haddana anagoo khalad galnay oo maanta xumaan meesha ugu xun anagoo samaynayno oo ilaahay haddana wuxuu naga sii sugaa waa wanaag wuxuu mar walba naga sii sugaa waxa waaye inaan dib usoo noqon doono wuxuu mar walba naga sugana waxay tahay xumaantaan geysana bedelkeeda inaan wanaag ku bedeli doono marka walaasheeda ama walaalkeega markaad xumaan geysato isku day inaad wanaag ku bedasho ha isku day inaad xumaan ku bedasho sababtoo ah haddaad xumaan ku bedasho beri adiga xumaanta meel bay kuu taalaa haddii laakiin aad wanaag ku bedasho beri wanaagyahay meel ku yaalo sababtoo ah qof walbo wuxuu camal qabsado unbaa ka dambeeyo adiga camalkaad qabsato hadduu yahay camal wanaagsan meel ku yaalo haddii adiga aad qabsato camal suubanna camalka suuban ayaa meel ku yaalo haddii camal xun aad geysatana camalka xumaan unbaa meel ku yaalo haddii jeerno dhibaatada aan geysano ama xumaatada aan geysano xagga ilaahay marnaba kuma degdego oo mar walbana macnaha ilaahay nooguma caroodo mar walba ilaahay wuu naga rajo sugaa hamiyuu naga sii leeyahay inaan soo noqon doono naga sii sugaa inaan maaragtay isbeddel sameyno naga sii sugaa inaan maaragtay wax wanaagsan aan la soo noqon doono ilaah rajo noo qaba marka annaga maxaa noo diiday qof walaalkeena ama walaasheena markii xumaan noo geysatay inaan usoo noqono ama inaan macnaha xumaantaan u geysan bedelkii wanaag ugu bedelno ama wuxuu macnaha dhibaata noo geystay bedelkeeda inaan maxaa la khayr ugu sheegno ama wuxuu markaas xumaan noo geystay inaan tartiib wax u fahamsiino maxaa noo diiday anaga sababtoo ah addoomaan nahay addoommadii maanta haddaan isku dhex nooleedaan nahay oo hal dhulaan kasoo jeedna oo hal dadaan nahay oo hal luqadaan ku wada hadalnaa maxaa noo diida haddana inaan maarata isfaham weyno maya waa aad bay u qaldan tahay sababtoo inaan isfahan waa shay waajib noogu ah nafsadeena ilaahay wax walbo anaga aan sameyno ayuu fikirkeena haddana wuxuu
karaj dhigaa ma aragtay ama ku mar walba ku dadaalaa waxay tahay ama wuxuu mar walba naga sugaa waxay tahay inaan bedelkeeda khayr la iman doono marka walaasheeda ama walaalkeeyo waxaa idinku wacyigelinaya hadduu ilaahay ka raali noqdo walaalkaaga ama walaasha haddii khalad kaa gashay inaad ka cafiso ama haddaad khalad gashayna aad u raali noqoto aadna ka raali geliso khaladkaad gashay walaasheeda ama walaalkii aad ayaan jeclahay fadlan waxaan idinka codsanaa videogan hadduu kusoo gaaro inaad sheer garaysaan walaalaha Soomaaliyeed meel walba daafaha caalamka jooga inaad sii gaarsiisaan aad iyo aad baa idinkugu xirnaa waxaan jeclahay mar walba wax walba aniga markaas fikradeena ama wax horumarkeena ama mustaqbalkeena ama nolosheena dambe ama aytiinkeena dambe ama awlaadeena dambe wax u qabanayo inaan mar walba idin soo gudbiyo aad aan jeclahay sababtoo ah waxaa waa dad is jeclaanahay Soomaali weyn aad ayaan jeclahay waxaa mar walba aan isku jecelnahay waa ogtiin waa diinta islaamka marka walaalahay meel walba joogtiin waxaa idin leeyahay cimri dheer caafimaad waxaa idin rajaynayaa ciidan anigoo caafimaad qabno idinku caafimaad qabno ilaahay naskan wada tuso hadduu ilaahay kala noqdo ilaahay waxaan ka barinaynaa xanuunka naga qaado fadlan ha ka iloobin hadduu kusoo gaaro videogan inaad sii sheer garayso asxaabta la sii wadaagto Soomaaliyeed meel walba ay joogto qof alaal qofku videogan soo gaar waxaan ka codsanayaa inuu sii sheer gareeyo walaalahayga Soomaaliyeed meel walba joogtiin waxaan idin leeyahay waa walaalkiina Cumar Idriis ولو يخان عمر كيو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.